السلام عليكم وولكم دكتور اسماعيل ديري علي دكتور حادلي maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc loo yaqaano boog caloleed ama wax loo yaqaan afka qalaad loogu yaqaan peptic ulcer boog caloleedkaas oo ku dhaco habdhiska dheefshiidka ee bini'aadamka Ilaahay u sameeyay laba meel oo kamid ah meel waxa loo yaqaan gastric ulcer waa boogta ku dhacda caloosha gudaheeda iyo mid ku dhaco duodenal ulcer boogta waxay ku dhacaysaa qaybta loo yaqaan mindhicirka yaryar qaybtiisa koowaad ama 12 waxay leeyihiin calaamado ay ka sameeyeen sida xanuun in laga dareemo boga in qofkii dareemo laab qarar inuu cuntooyinka ay dufan ku badiyeen ay dhibaan inuu markasta u dhargan qofkii waxa kale lagu arkaa qofkii inuu dareemo miisaan dhumay asigoon ogeyn oo soo ugu talagalay inuu caato waxay ku kala duwan yihiin xanuunka meesha laga dareemayo gastric ulcer ama boog caloleedka midka caloosha ku yaalo waxaa la dareemaa xanuunka markii cuntada la cuno 15 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo halka midka loo yaqaan duodenal ulcer oo ku yaalo mindhicirka qaybtiisa koowaad la dareemo qofka xanuunka saacada kadib hadaba maxaa keeno marka waxaa keeno wax loo yaqaan oo ugu badan oo keeno waa bacteria ama infection loo yaqaan H pylori waxay ku nooshahay caloosha inteeda badan laakiin mararka qaar xanuunka ay keentaa waxa kale oo keeno waa loo yaqaan steroid anti-inflammatory drugs daawooyinka loo cuno xanuun baabi'iyaasha ay kamid yihiin sida ibuprofenka iyo aspirinka iyo diclofenac waxa kale ugu badan oo ayadana keena dadka inta badan keena stresska markay qofka dareemaan inuu ulcer ku sameysmo ayaa dhacda marka sidee marka loo baara waxa loo baara ama u baarna dhaqaatiir hadanahay waxa la isticmaalaa wax loo yaqaan endoscopy kaasoo la gelinayo tubada afka laga gelinayo mindhiciraha caloosha lagu soo arkayo waxa kale oo lagu baaraa wax loo yaqaan urine breath test taasoo lagu tijaabinayo qofka bakteeriyada iyo maadada isla falgalaan qofkii xanuunka markaas lagu ogaanayo waxa kale oo jira wax loo yaqaan stool antigen wax la dhaho oo saxrada laga qaado taasoo lagu ogaanayo bakteeriyada inuu qofkii qabo sidee marka loo daaweey karaa waxa loo daaweeyaa ama siina bukaanada waxa loo yaqaan antibiotic oo laba xaba ah oo ka kooban ama kuwa dila infectionka ama bakteeriyada dila iyo waxa la siiyaa kuwa gaaska ka yareeya kuwa gaaska yareeya laba nooc waaye kuwa dhaqaatiirta ayaa qoro waxa loo yaqaan proton pump inhibitors inta badan magacoodan waxa la yiraahdaa lansoprazole ama omeprazole iyo wixii lamid ah waxa kale oo jira kuwa oo laga helo farmashooyinka iyo dukaanada supermarketka sharbooyinka Gaviscon iyo loo yaqaan ay ku jiraan sida aluminum hydroxide iyo magnesium hydroxide oo iyo daawooyin kale oo lamid ah oo loo yaqaan H2 blockers ayaa loo isticmaalaa kuwaas waxay ka yareynayaan kaliya xanuunka ee kaama daaweynayaan boog caloolkii inkastoo Soomaalida ay u maleeyaan kaas markay cunaan qofkii uu dareemayo relief ama xanuunka oo ka baaba'ayo laakiin kaama daaweynayso haddii aad calaamadaha aan soo sheegnay isku aragtid waxa u baahan tahay inaad dhakhtar booqatid si lagu baaro oo lagaaga daaweeyo sababtoo haddii laga daaweyn wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo complication ama dhibaatooyin ka dhalanaya jiro sida dhiig bax inuu imaado oo qofkii hadhow shoog galo ama anemia ay ku dhacdo waxa kale oo dhici karta in perforation wax la imaado duleel oo imaado oo caloosha ka sameysmo kaas oo hadhow dhali kara wax loo yaqaan peritonitis loo yaqaan ama in infection oo ku dhaco xuubka caloosha oo daboola ama abdominka daboola ama uurku jirta daboola qofba sida uu yaqaan waxa kale oo jiro oo dhacaya qofka hadii mararka qaar half percentage cancer inuu ku dhaco oo ay keento H pylori waxa kale oo jiro inuu obstruction mararka qaar u dhaco sidee loo hortagi karaa marka waxa loo hortagi karaa dadka isticmaala daawooyinka xanuun baabi'iyaasha inuu iska yareeyo bedelkoodna oo qaato sida paracetamolka inkastoo asiib laftirkiisa oo waxyeelo badan yahay haddii xanuun ku qabtaan waxaan kula talinayaa dhakhtarkaaga u tagto aad kala kaashato waxa qaadanayso oo la iska dhaafo daawooyinka aan iska qaadano farmashiyaha waxa kale oo loo hortagi karaa nadaafadda in qofka gacmaha iska dhaqo maadaama bakteeriyada la kala qaado si contact toos ah loo kala qaado ama taabasho lagu kala qaado ama cuntada oo qofka qaadi karo sidii in cuntada aan si fiican loo karin ama waxyaabahan khudradda aan si fiican loo dhaqin waxa loo baahan yahay khudradda biyo korka imaanaya in lagu dhaqo gacmaha saabuun iyo biyo iska dhaqto saas ayaa loo hortagi karaa waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideen waxaan islaaha u faa'iiday walaalaha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.